madaxweynaha dowladda Jubbaland iyo wafdigii ballaarnaa ee la socday waxaan marka ugu horeysa uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee muddadii ay joogeen shaqooyinkii halka ka socday ay uga qayb qaateen waxaan runtii muhiim ah marxaladahan oo kale markay jiraan in la tashiga iyo wada tashiga uu bato Jubbaland iyo Puntland shirkii u qabsoomay wixii ka soo baxay war-saxaafadeedkii ayaa lagu akhriyay gundhigiisuna wuxuu ahaa sidii iskaashigii hore u socday loo adkeyn lahaa sidoo kaleetana marxaladan hadda dalku ku jiro aragti midaysan aan uga yeelan lahayn arrimaha ku aadan geedi socodka dib u dhiska dalka Soomaaliya runtii waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimadda ana in ay ku soo gabagaboobi doonaan si wanaagsan oo maslaxadda ummadda danteeda ku jirto wixii halkaa ka soo baxana kulley waqtigeeda ayay ahaan doontaa haddii Ilaahay idin ka dhigo waxaan runtii hadalkay ku soo gabagabeynayaa in kulankii halka dhacay oo kulan muhiim ahaa guddiyadii kala duwanaa ee ka qayb qaatana ay runtii aad u lafagureen xaaladda dalku marayo iyo marxaladda hadda ku aadan intaasna waxaan rajaynayaa inay waxtar u noqon doonto dhismaha dowladnimada Soomaaliya intaasaan hadalkay uga baxayaa madaxweyne ku soo dhawow waxaan rabaa marka hore madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Deni iyo maamulka labada gole golaha wasiirada iyo golaha fulinta baarlamaanka ee Puntland iyo dhammaan shacabka reer Puntland inaan uga mahadceliyo soo dhaweyntii qiimaha iyo qadarinta lahayd ee nagu soo dhaweeyeen magaalada Garowe iyadoon u raacinayo inay Puntland had iyo jeer tahay hooyada systemkan maanta federaalka ee Soomaaliya ka jira ayna ka muuqato hooyanimadeedu sida marwalba ay dadaalka dheeraadka ah ugu bixinayaan sida Soomaaliya meeshii taagantay hore uga socon lahayd nidaamka federaalka u hirgeli lahaa dowladnimada Soomaaliya ay cago ugu istaagi lahayd intaa markaan ka soo gudbo waxaan filayaa warka murtidiisa waxaa lagu sheegay war murtiyeedkii saaxiibkay madaxweyne Siciidna faahfaahin dheeraad uu ka bixiyey in yar waxaan rabaa inaan ku daro xaaladda maanta waddanka Soomaaliya uu ku jira waqti kala guura ma aha inay hadda waqtigan oo keliya caqabadani timaado mar kasta ay doorashadu soo dhawaato waxaa yimaada isqabqabsi waayo damaca ayaa isdiida ninka kursiga ku fadhiyay wuxuu rabaa inuu sii joogo oo waqtigii hore way uga sii fiicnaanaysaa ninka bannaanka ka joogana wuxuu doonayaa inuu kursiga tago wuxuuna qabaa tuhul ah ninka maanta fadhiyay inuu rabo inuuna ka tegin taasi markaa waad garan kartaan 2012 iyo 2016 labadaba xaaladda waqtiga ugu dambaysa meesha ay gaaraysay laakiin maxaa meesha taalla waxaa weeyaala in la helo shucuurul mas-uuliya ama dareen mas-uuliyadda in la dareemo oo qof waliba maanta kursiga uu ka tegayaa laakiin uu garto waxa uu ka tegayaa waxa ay noqonayso waa mid faran markaa nin kastoo mas-uula maanta ama heer state ha noqoto ama heer federaal ha noqotee inuu garto maanta xaaladda waddanka uu ku jiraay waxaa ka iman karay iyo meeshay istaagi karayso taasaa waxay ahayd waxa aad aan saaxiibkiis Siciid iyo madaxdii reer Puntland iyo akhyaartii iyo waxgaradkii aan ugu nimid aan kala hadlaynay danta dalku maxay tahay maxaase annaga nagala gudboon wax badanna waxaan istusaynaa waxay ahayd in qof waliba meesha uu taagan yahay tanaasul uu sameeyo dadkan sidii la isugu wadi lahaa waddankan meeshii la geyn lahaa sida si nabad ah doorasho uga dhici lahayd waqtigeeda ku dhici lahayd khalkhal siyaasadeedna uuna u yimaadeen waayo markaa taariikhda dib ugu noqoto isbeddelka siyaasadeed ee waqtigiisa ku dhacay Soomaaliya wuxuu u geystay tallaabooyin horey loo qaadayo wax kastoo markaa caqabad ku keenay iyadoo dhibaato ku yahay dadka Soomaalidana iyaga isku dan ah
meel kale wax laga soo guuriyey cid kaloo wax lagaga dayday midkoodna wax dan uguma jirtee waxa iyaga ka dhexeeya dano middaas waad garan karaysaan marka inaan intii aan joognay xidhiir badanna uu jiray madaxda waddanka soomaaliya ama heer federaal ama heer state inaan wadahadallo la yeelanaynay sida uu saaxiibkii Siciid sheegayna ay tahay in la isugu tago magaalada muqdisho oo aan halkaas tagno si aan uga sii ambaqaadno war maxaa dhiman ilaa wixii waa in la isqanciyo xaggee wax inoo yaalaan aan aadna isugu boorinay cid walbana u sheegayna in wax badan loo talaasulo qadiyadda guud ee dalka iyo inta maanta danleyda ah ee dhiban ee shabaab iyo mushkilada oo dhan soomaaliya ay ku haysato waxay soo fiirinayaan waa inta mas-uuliyiinta ah qof walibana berri waa lagala xisaabtami doonaa taasna waxaan rajaynayaa in ay si fiican kusoo dhammaan doonto wixii annagu aanu isnidhi iyo wixii la falanqeeyey iyo kulligeedna ay ahayd dardaaran iyo soomaali iyo xalkeeda iyo nabadeeda iyo isu keenisteeda iyo xilliga kala guurka in la ilaaliyo inuu ahaa shayga asalkii ay ka wada hadlayna mar labaad waxaan rabaa madaxweyne Siciid iyo reer Puntland inaan uga mahad celiyo doorka shariifka ee mar walba ay ka ciyaaraan ilaalinta sistamka federaalka iyo dowladnimada Soomaaliya oo aan garanayna maanta dowladnimada xamar lagu degan yahay meesha ay ka soo dhaqaaqday iyo sida ay maanta tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaanu annaguna gudi doono abaalka iyo soo dhoweynta iyo garab istaagga iyo siyaasadda had iyo jeer aad ka waxaynaysaano mar hadday Jubbalandna tahay tii labaad ee kusoo xigtay nidaamka federaalka annaguna aan si fiican usii jiidi doono aan noqon doono muriid fiican oo macallinkiisii wax baray wax kaga dayan doono aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu